hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa matooro waxa ay geersiisay dadka ku nool deegaanka Wilmater oo ka tirsan degmada Faafan sida warbixintan oo inoogu soo diray wariyahayga Maxamed Cabduqaadir Axmed. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR ayaa ugu deeqday matoor dadka ku nool deegaanka Wilmater ee degmada Faafi kadib markii uu ka cileysnaa in muddo 2 bilood ah. matoorkani ayaa ka caawin doona dadka iyo dunyada ku nool deegaankaasi ilaa abaara ba'an ay aad u saameysay dad iyo dunyaba. dhanka kale xildhibaanka laga soo doortay deegaanka Faafi Mudane Mahad Beere ayaa aad ugu mahadceliyay hay'adda UNHCR. mudane laga soo doortay jaarajil oo ka tirsan deegaanka Faafi maanta meeshan waxaan iskugu imaanay inaan kala wareegno matoor ay u soo gadeen matoorka biyaha Wilmater oo dad aad iyo aad u tiro badan ay ku nool yihiin waqti abaaraha oo aad iyo aad loogu baahnaa biyo mashiimahan cilad badan ay keenayeen ay UN ugu deeqday matoorka arkaysa saaran baabuurka dadka deegaanka oo dadkayga meesha laga soo doortay waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa matoorka iyo hawlaha kale biyaha ay ka qabteen sida Calanjool Wilmater Yumbis iyo Ball 5 inkastoo leena meelo badan oo kala u baahan in laga qabto waqti xun lagu jiro aan ka codsanayno in shidaal iyo gargaar kale oo xagga biyaha ay geystaan. waxaan nahay magaalka maarta Wilmater Cabdullaahi Shaqdiin waa liidaha marka waqti badan waxaan ku cadeeyay maartay matoor oo jiiraanka ka soo qaadanay maanta aad baan u faraxsanahay hadii matoor inaka aan helay waan u mahadcelinaynaa UNHCR abaaraha dadka u saameeyay waa alxamdulillah hadda waa iska faaya oo wax ka dhib badan ma aan qabin oo hadda aan ka baxno alxamdulillah sanadan ilaahay baan maartay ka rajeeyay matoorka insha Allah waxa weeye matoorka alxamdulillah in badan baan maartay matoor aan ahayn oo matoor xun oo maartay aad loo dhibaayo oo mar walba naga hadlaabo oo mar walba la hagaajiyaan haysanay oo ku rafraatanayn hadda alxamdulillah dareenka anagu ku naqsanayo maartay dhibaatada ka baxnay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala matoor fiican u nasiyay oo lagu soo kaalmeeyay oo maartay qoladan inagu soo kaalmeeyeen marka insha Allah aan rajaynaynaa in oonkina ka baxnay dhibaatada insha Allah Ilaahay naga bixiyo alxamdulillah maanta aan ku sir waato aad iyo aad aan ugu mahadcelinayno UNHCR anagoo dhibkanaga ama baahida noo weyn ay ahayd injinka maantana la siiyay anagoo muddo 2 bilood ama 3 bilood ku cabeynay injin aan ka soo codsanay dad jiiraanka ah xalayta markii noola sheegay oo niri injinkan waa diyaar injinkan wax badan baan daba soconay ilaa 2 bilood soo dhaafnaa daba soconay MC-ga Jaarajila division iyo MB-ga Faafi aad oo qeybqaateen waxaan u mahadcelinaynaa hay'adda noo soo gaday Ilaahay weynaa waxaad anaga gacanta noo soo galiyay marka hadii aad weysa dareenkayga maanta farxadeed aad u weyn tahay wali waxaan rabi lahaa UNHCR maanta intayna raacday magaalada Wilmater tagto sababtoo ah dib badan baa meesha ka jira waa la isku soo guuray wajeer dadka imaaday ilaa oo yaraan 11,000 oo lo oo baa joogta meesha geel iska daasaga si kastaba aatee dadka ku nool deegaankaasi ayaa sheegay inay u dhibaateysnaayeen matoor la'aan. Maxamed Cabduqaadir Axmed, telefishinka caalamiga African Cable, deegaanka Wilmater degmada Faafi gobolka Waqooyi Bari Kenya.